Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow waayeel media. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kanaalkeena, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharro taxane ah aan soo gelin doono. casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay waa tenniskii tobnaad. hore waxaan u soo dhiganay 9 tennis. kiina ugu dambeeyay waxa uu ahaa simple future tennis. waxaan dhigan doonaa kii tobnaad oo magaciisa la yiraahdo future continuous tennis. future continuous tennis waa tenniskii labaad qaybta future-ada. way usage isticmaalkiisa is used waxa loo isticmaalaa to talk about inuu ka hadlo an action ficil that will be happening ficilkaasoo dhici doona sometime in the future waqti mustaqbalka. future continuous tennis usage isticmaalkiisu is used waxa loo isticmaalaa to talk about inuu ka hadlo an action ficil that will be happening ficilkaasoo dhici doona sometime waqti in the future oo mustaqbalka. marka future continuous waxa loo isticmaalaa ficil dhici doono mustaqbalka, socono doono mustaqbalka. waxaynu hore soo dhiganay simple future. simple future isagu wuxuu ahaa waa ficil dhici doona mustaqbalka. way formuladiisa u kaalay. formuladiisu waxay noqonaysaa markay positive tahay subject ficil sameeyaha plus waxaan ku daraynaa will be ama shall be plus waxaan ku daraynaa verb wata ing ama verb la raacinayo ing plus objectiga. markay negative tahay diidmo waa subjectiga plus will not be ama shall not be plus verb ing wata plus objective. markay tahay question qaacidadu waa auxiliary verbka plus subjectiga plus verb ing la raacinayo plus objectiga. waayahay auxiliary verb ficil caawiyihiisu waa will be ama shall be. toddobadii verb to be I iyo we waxay ku shaqeeyaan will be iyo shall be ba labadaba way qaataan. laakiin shanta soo hadhay you, they, he, she, it shantaas waxay qaadanayaan will be laakiin iyagu kuma shaqeeyaan shall be. example tusaale positive hadal caadiya, negative diidmo oo not baa soo gelaysa, question oo hadal su-aala. I will be speaking English English baan ku hadli doonaa mustaqbalka waanay socon doontaa. I will not be speaking English English kuma hadli doono. will I be speaking English ma English baan ku hadli doonaa. you will be learning computer baad baran doontaa mustaqbalka waanay socon doontaa. you will not be learning computer kama baran doontid. will you be learning ma computer baad baran doontaa. he will be playing football mustaqbalka kubadda cagta ayuu ciyaari doonaa waanay socon doontaa. he will not be playing football kubadda cagta ma ciyaari doono. will he be playing football ma kubadda cagta ayuu ciyaaray. he will be writing lesson cashar baan qori doonaa mustaqbalka waanay socon doontaa. we will not be writing lesson mustaqbalka cashar ma qori doono mana socon doonto. will we be writing lesson ma cashar baan qori doonaa. she will be coming home guriga ayay iman doontaa mustaqbalka waanay socon doontaa. she will not be coming home guriga ma iman doonto. will she be coming home ma guriga ayay iman doontaa. they will be sending money lacag bay diri doonaan mustaqbalka waanay socon doontaa. they will not be sending money lacag ma diri doonaan. will they be sending money ma lacag bay diri doonaan. it will be eating food cunta ayay cuni doontaa waa xayawaan waanay socon doontaa mustaqbalka. it will not be eating food cunta ma cuni doonto. will it be eating food ma cunta ayay cuni doontaa. Aad mahadsan tahay daawashada iyo dhageysiga videogan. haddii video ku cajabiyay like noo saar, dhiirigelin bay noo tahay.